marka ugu horeysa waxaan doonayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka magaca shaqaaleynaha dawladda hoose waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland kaalinta muhiimka ah ee maanta ololahan ay ka qaateen inay tabiyaan wararka ku saabsan ololahan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa abaal weyn waa idin mahadnaqaynaa insha Allah ta'ala taariikhda qayb ka noqon doontaan markaa saxaafadda iskale aad iyo aad baa u mahadsantiin waa talabaad sidii markii hore baan u ilaaminay waxay qorshe u ahaa meelo calaamadsan oo dooxa ka mid ah inaan nadiifino insha Allah ta'ala dadkii reer Hargeysa u baaqnay alxamdulillah dad badan baa noo yimi laakiin insha Allah ta'ala waxaan kaloon u baaqaynaa in maalmaha la isu habar wacdo inaan loo kala maqnaan oo qof waliba waxa uu ku tabarucaya uu noqdo inuu goloofkiisa soo qaato majarafadiisa ama walandihiisa ama faraleediisa ama jawaankiisa inuu isagu soo qaato insha Allah ta'ala annaguna intaanu keeni karayna ayaanu keenaynaa intaas waa intaa saxaafadda waxaan u sheegayaa halkan ujeedadaan ka leeyahay waxa weeye meeshani waxay dooxa kaga beegantay faras magaalaha ama bartamaha magaalada waxa mara biriishka ugu weyn iyo labada wadada ka timaada New Hargeysa ee beerta sayidka iyo wadada kale ee ka timaada beerta xorriyadda waa magaalada bartankeedii weeye isha bini aadamku ma qaban karto dooxuna soo saacaado waxaanu doonaynaa marka waa qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog balorta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno dadka qashinka keenayna wax ka qabanno ilaaha uu ka soo baxayaan qudunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagno sharciga marka wax kaga qabanno talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha Allah ta'ala dooxan uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaala biyo nadiif yihiin oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan qaar kubad iskaga ciyaaraan qaar iskaga dhaxnastaan caruurtu iska dhex yaacdo waayo Hargeysa ma haysato meel banaan oo magaalada bartankeeda ku taala oo intan dooxu inoo leeg marka public space-ka ugu weyn inuu haysanaa waa dooxa Hargeysa weey marka sidaas uu dooxa Hargeysa uga yahay mudnaan marka insha Allah ta'ala qorsha nooga dejisan maalin walba iyo wiig walba waxa la qabanayo oo xitaa tahay shaqo socon doonta insha Allah ta'ala marka dooxani ha iska rafato laakiin halka loo socday ujeedada laga leeyahay dooxan in la nadiifiyo waa la gaaraya waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqaya oo uga faa'iideysanaya mikrofoonada badan ee hor yaala dhaqankiina wax ka bedela hab dhaqankiina wax ka bedela qofku qashinka ha dhigo meel ku haboon annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadadaad marayso inaanu kaaga sameeyno meelaad qashin ku rido sidoo kale dooxa Hargeysa bulaacad maaha suudi maaha wararka saxarada iyo kaada la soo doonanayo ka daaya sharci baa idin qaban doona hadhow baad oran doontaa makaadi baa la igu soo xidhay xaar war ka daaya qofka halkan qashin ku soo tuura ganaax baa ku waajibi doona intaad oran lahayd war bacyiroon qashin ku sidaa la igu xidhay war qashin halkan keeni war dawladdu indho quraanjay leedahay haddaad maalin naga baxsato maalin dambe oo ku heli doona habeen haddaad baaldigaaga uska gaalo soo dhuumatad ku shubto habeenada kamida waa ku qaban doona waxa lagu qaadi doona dambiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray waa lagu qaadi doona taasina waa baaqa shacabkayga waxa kaloon idinkana intiina halkan joogto ka codsanay dalka ugu dambaysa in aniga dhageystaan maaha in halkan taagnaataan maaha war nin waliba ha foorarsado dooxa xashishka ka guro shaqaduna ha bilaabato saxaafaduna waa maadsantahay insha Allah